markale ciidamadii ugu badnaa ayay dawladda Soomaaliya maanta ka daabulaysaa Muqdisho waxaana la geenayaa deegaanada Jubbaland iyaga oo halkaasi ka howlgali doona sida dawladdu ay sheegtay dhanka kale ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ayaa si aan sharci ahayn ku soo galay gobolka Gado iyaga oo fariisin ka sameeysanaya magaalada Balxaawe ee gobolka Gado dawladda Soomaaliya ayaana arrinkaas aad u diidan wararkii ugu dambeeyay khilaafka dawladda iyo Jubbaland ayaan soo gudbinaynaa daawada muuqaalkan like sar soo koran la wadaag asxaabtaada dawladda Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa hadda ku daabulaysa deegaanada Jubbaland maanta magaalada Muqdisho waxa ka baxaya dhowr diyaaradood oo sida ciidamo kala duwan oo qaba tababar kala duwan ciidamada waxay ka gooban yihiin kuwa gaarka ee gorgor isoo kale ciidan ka tirsan kuwa haram cad waxaana la geenayaa qaybo kamid ah maamulka Jubbaland gaar ahaan agagaarka Raaskambooni oo dawladdu ay ka sameeysanayso fariimaha cusub sidoo kale waxa jira warar sheegaya in ciidamada maanta la daabulayo ay ku jiraan kuwa danab ah ku dhawaad 1000 askari ay dawladda halkaas geenaysaa sida ila madax banaan ay Kaab TV u xaqiijiyeen tani waxay ka dhigan tahay in dagaalka dawladda iyo soo kale maamulka Jubbaland uu gaaray halkii ugu xumeed iyadoo oo saacado ka hor khudbad uu jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo weerar afka ku qaaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Axmed Madoobe ku eedeeyay in 14 sano uu Kismaayo joogo uusan hal deegan ka xureen al-shabaab hubkii intaas uu adduunka iyo Soomaalida inteeda kale ka helayeen uu baqaaro ku xareystay kolkii la yiraahdo ciidamada dawladda la dagaalamayaan oo hubkaasi la soo baxay sida Xasan Sheekh uu ku eedeeyay Axmed Madoobe khilaafka halkii ugu xumeed ayuu gaaraya waxa isa soo taraya ciidamada Itoobiyaanka ee gudaha u soo galaya Soomaaliya iyaga oo garab siinaya maamulka Jubbaland sida rumaysan yahay dawladka Balxaawe waxa ku sugan dhowr gaari oo ciidamada Itoobiyaanka ah kuwaas oo sida ciidamo iyo sidoo kale hub aad u badan waxayna doonayaan inay fariisin military ka sameystaan magaalada Balxaawe ee gobolka Gado lama og khilaafkan halka uu ku soo ilaan doona saacada xaalad waxay u muuqataa in wali Bereles u tumanayo iyada oo waaran soo qabasho hore loogu jiray Axmed Madoobe sidoo kalena maxkamad ku taal Kismaayo iyaduna waaran soo qabasho ay markaas ugu jartay Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya labada dhinac waxay kala taagan yihiin meel aad u kala fog iyadoo ilaa ay hadda wali wax aan la gaarin wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad uga socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena